Maamulka Somaliland ayaa ugu baaqay dowladda Mareykanka inay ka codsato Puntland inay joojiso qulqulka ciidamada ka soo baxaya deegaanadeeda kuna wajahan xarunta gobolka Sool ee Laascaanood. War ka soo baxay wasaaradda arrimaha dibadda Somaliland ayaa sidoo kale lagu sheegay in Mareykanka ay ka codsanayaan in Puntland ay kala hadasho joojinta taageeridda ciidamada iyadoo xaalad adag jirto haddana wali wax jawaab ah lagama bixin codsiyadii dowladda Somaliland ee ku aadanaa taageeridda Mareykanka ee lagu qancin lahaa maamulka Puntland inay joojiyaan dagaalyahanada iyo hubka ay ka soo qulqulayo dhulkooda ee Laascaanood u qulqulaya. Xukuumadda Puntland ayaa marar badan iska diiday ka qayb qaadashada dagaalka Laascaanood iyo in ciidamadeedu ay tageen halkaasi. Somaliland ayaa sheegtay in qulqulka ciidamada iyo hubka ka imanaya dhinaca Puntland ay xabsi gelisay odayaasha dhaqanka ee deegaanka kuwaas oo sida ay sheegtay doonayay inay wada hadal la galaan. Tan iyo markii uu dagaalka Laascaanood bilowday, Somaliland ayaa ku celcelinaysay in ciidamada daraawiishta ee Puntland oo garabsanaya argagixiso iyo maleeshiyad nabadiid ay ku qaadeen duulaan deegaankooda walow Puntland ay iska fogeysay eedeymahaasi. Safiya Maxamed Ibrahim, SBTV, Muqdisho.